من لزم الاستغفار قفكي جوبتي استغفارك جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب. حديث كسحولة قفكي جوبتي يا استغفر الله استغفر الله إلهي سبحانه وتعالى وحول بأ كربه هيسته إلهي وكقاضى إريري كست وكجر إلهي وكساره وحسن فيلين وربنا إلهي وصيا. سدح درس أواوين استغفار تأخري مالين كستو. درسي اللبات بقولال انت تجارسين كست جارسي هذا الك بني آدم كأتكو علن لهيت إيه وحيالها كلا أعطيه لهيت بوسكي سوحات كوبدشا استغفارت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواد الجنال كأستاذ عبد الناصر الجنال كمد ذكر إلهي سبحانه وتعالى أو أعماشك وفضل بدن. ذكر إلهي وبدنيه لكن ما أنت حنكسو قاضنا يا ذكر كمد ذكر إلهي سبحانه وتعالى هدي آد أخرسه أنت أقول بدن آد كريكرته ترجع عن مجرته صوت إلهي سبحانه وتعالى قرآن كحوليه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مؤمنين والله هذلي wax badan ilaahay xusa marka inta ugu badan aad gaarsiin karto culimada kumaan kun ay tilmaameen laakiin awoodaada ku xiran tahay waqtigaaga ku xiran tahay culimada qaarkood waxay dhaheen waxay ku xiran tahay iimaankaaga intuu leeyahay qofka markuu dhikriga sameeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala saddex shardi aan ka hormarinaa iyadoo kooban. shardiga koowaad waxa fiican haday suurtagal tahay adiga ilaah inaa wada tihiin si oo markaasi qabuul loo helo. laba ilaahay dartiisa inaad u samayso oo ilaahay aad ku raali geliso. saddex macaasidoo dhan inaad iska dhowrto noocay doonto ha ahaato midda muuqata iyo midaan muuqan waxay keenaysaa dikrigaaga in la aqbalo. dikriga ilaahay subxaana wa tacaala aan ka hadlaya waa duco waaye ducooyinka ka mid ah. ducadaas waa wada garanaysaan way kooban tahay laakiin haddii maalintii aad ku celceliso 1000 ama wax ka badan ama ugu yaraan 100 jeer إلهي سبحانه وتعالى الباب كفرايا. وأنا ذكري إلهي سبحانه وتعالى في سورة نوح وكحسي مرك النبي جيسي نوح ولها لا يدد كيسي إلهي قرآن كعقلها فقلت استغفروا ربكم وحان كلها يددكي ولها لا يا إلهي سبحانه وتعالى ويديست إن ويديد مداف. استغفار معناه وحوايا ضرب إلهي أدلا ذا إله ويد مداف مرك الدنبي إلهي وكاردافه oo tawbadaada ilaahay uu aqbalo albaabada lagu furayaa waxaad weydiisatan waa lagu ogolaanayaa niyadaadana isaafi tahay. marka waxaan soo qaadanayaa qiso ka mid ah qisooyinka qof ku dhaqmay aayadaas quraanka faqultu astaghfiru rabbakum aayadda marka jawaaba ku xigto oo ah yursilis samaa calaykum idraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin. aayadaasi waxay ka hadashay saddex arin oo wax walba hoos imaanayaan. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf aad weydiisato oo aad ku celceliso istikfaarta astaqfirullah 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 adoo meel fadhiya oo waxba aan ku kala goynaynin oo ilaahay adiga aad keli ku tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay albaabada dhan ayuu kuu furaya. qisa cajiib badan. nin waxaa jirto maalintii aqrin jiray ilaa 10,000 oo astaqfirullah. ninkaasi wuxuu rabay wuu helay qisadoo kooban waata. maalin maalmaha ka mid ah waxaa safar galay imaam weyn aad wada garanaysaan imaam axmed ibn xambal. safarkiisii wuu dheeraaday marka wuxuu ku leexday xaafadda wuxuu ka raadiyey masaajidka ugu dhowaa uu galay. waqtiguu galay waxay ahayd waqtiga salaada maqribka ah. salaadii maqribka ahaa masaajidku ku tukaday. markuu ku tukaday nin sheekhu ahaa laakiin ikhlaasnimadiisa iyo isdhowrayo waxaa dhacday inuusan dadku isku sheegin. meel goonuu fariistay kitaabkiisuu furtay qur-aanku iska akhristay ilaa cishahuu sugay. salaada cishaha markuu tukaday jamaaca ku tukaday maadaama mugdi ay noqotay safarkuusan sii wadi karin wuxuu go-aan ku gaaray masaajidkunu iska seexdo. masaajidka meel ka mid uu nidaamsaday boorsooyinkiisii wixiisii markuu gooni u dhigtay uu kala nidaamsaday ayaa waxaa u yimid ninkii masaajidka khaadimka ahaa wuxuu yiri waxaad u egtahay qof musaafir ahaa uu dhahay waxaad u egtahay qof raba meesha inuu seexdo wuxuu yiri haa
meel kale aan seexdo dad aan ka aqaano ma jiro. wuxuu yidhi lama ogola meesha in la seexdo. markaasaa wuxuu yidhi masaajidka lama seexan karo, may lama seexan karo, marka waxaan kaa codsanaa inaad masaajidka ka baxdo. ninka markaa ma isku sheegin, marka hadduu isku sheegi lahaa madaxuu saaran lahaa. dadka hore saasay ahaayeen, way isqarqarin jireen. waa calaamadaha awliyada ilaahay ka mid ah dadka inaadan dadku isku sheegin waxaa tahay. waxaa laga cabsanaya wax la yidhahdo riyaa. qofka culummada saasay ka cabsanayeen. calaa kulli xaal wuxuu sameeyey alaabtiisu urursaday, banaanka masaajidka laga soo galo gees ka mid ah, masaajidka albaabka laga soo galayo geeskiisa meeshaasu xaarxaartay soo dhiganaya. marka ninkii isaga wuxuu ku mashquulsanaa albaabada kale inuu soo xirxiro, dirishadii inuu soo xirxiro. markii uu soo baxay ayaa wuxuu arkay sheekhii oo haddana dhinaci kale raba inuu jiifto. markaasuu yidhi meeshaa maaragta inaad jiifato, haa meeshaan lama ogola. intaas kuma joojin, wuxuu sameeyey alaabtiisii isaga inuu soo jiiday, foorno ku hor taalay masaajidka hortiisa meeshuu ku tuuray. ninaa fiirinayay marka, ninaa isha wuxuu ku hayay markuu albaabka ka soo baxay, markuu sheekha meesha xarxaarinayay wuxuu fiirinaya ninkaas wuxuu rabay albaabka foornada inuu xiro. waa salaada cishaa kadib uu foornada xiri jiray. foorno iyo dukaan waa isku dhex yaalo, macnaha foornooyinkii hore oo markaasi ceeshka iyo rootiga samayn jiray. calaa kulli xaal ugu dambeyntii ninkii markuu arkay meesha in lagu soo tuuray ayaa wuxuu yidhi waxaad u egtaa qof musaafira. markaasuu yidhi haa. markaasaa wuxuu yidhi waxaad u egtaa qof aan haysan meel uu seexdo. haa u dhahay meelaan haysta malahan oo aan seexdo. wuxuu yidhi kaali soo gal foornadeyda, gudaha u soo gal ama dukaankayga. markaad soo gasho waxaan ku tusin doonaa meel gooni ah oo munaasab ah oo aad seexan karto. waayuu dhahay. wuu soo geliyey foornadii meel geesa oo nidaamsan, boorsooyinkii wixiisu u dhigay. wuxuu yidhi waxaan kaa codsanayaa meeshaan wax yar inay igu sugto, howl cajiin iyo waxaasaan dhammaynayaa. markaan dhammeeyo waxaan markaas meeshao dhan aan kaaga tegayaa, intaas ka seexanaysaa. markaas kadib waqtigii munaasabka ku ah ayaad bixi kartaa ama salaada fajirka masaajidka aadi kartaa. waayuu dhahay. sheekhii markuu isku sugay meeshuu fariistay, marka wuxuu arkay ninkii cajiinka samaynayo oo ku celcelinayo astaqfirullah 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 astaqfirullah, ilaahu ii dambi dhaaf, ilaahu ii dambi dhaaf. marka wuu wadaa marka hawshiisa xagguu aadaa, waxbuu soo qaadanaya, waxbuu isku toosinaya, wuxuu dhammaystirayaa, maba hadlayo. astaqfirullah 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 astaqfirullah. ninkii marka sheekhi waa soo istaagay, waa u yimid. wuxuu dhahay kelmadan aa ku celcelinay sidaa igu soo duuduulaysa astaqfirullah maa leedahay? wuxuu yidhi haa astaqfirullah. wuxuu yidhi sidaan ilaa goormaa samaynaysa? ninkan waa caalim, uu ogyahay waxa uu ku hadlayo, uu dhahay wax weyn waayo. markaasaa wuxuu yidhi nolosheeda inaan sameeyaa uu dhahay. markaan shaqaynayo, markaan wax gadaayo keliya maahine, marka wuxuu dhahay intee jeeroo dhahdaa astaqfirullah maalintii? nabiguna waa ogtihin wuxuu dhahay inii la astaqfiru 100 mara, rasuulka alai salaam, aw 70 70 jeer ama 100 jeer. isagoo dembigiisa loo dhaafay ayaa wuxuu yidhi intaasoo 100 jeer maalintii ama 70 jeer ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa, dembina ma lahayn. waxay ku tusinaysaa intaasoo jeer marka la dhahayo in la badiyo. marka wuxuu yidhi 100 ma akhrisaa? may 100 waa ka badan tahay uu dhahay. 1000 may 1000 waa ka badan tahay. markaas kadib wuxuu weydiiyey su-aal ah, markaad akhristo astaqfirullah ilaahay wax ma weydiisataa? markaasuu yidhi ha, waxaan rabaa weydiistaa. wuxuu yidhi ilaahay muu kuu jawaabaa? markaasuu yidhi maba jirabo wax aan weydiistay maalintaasi oo ilaahay usan isiinin hal shay oo ilaahay iga soo daahiyo oo weli aan sugayo. markaasuu yidhi ma waxaad leedahay waxaa ilaahay weydiisatuu ku siiyaa? maya, ilaahay maalintii u siiyaa ku dhahay. waxaan weydiistay ilaahay maalintii wax iga maqan ma laha, nolosha ugu fiicnaan ku jiraa. laakiin hal wax aan jeclahay aan ilaahay weydiistay, maadaama wax walbaba ilaahay uu isiiyey oo aan ku qanacsanahay, waxaan aaminsanahay tanna ilaahay inuu isiin doono. maxaa waaye uu dhahay? wuxuu dhahay cid inaan u sheega ma raba, aniga ilaahay waay. markaan weydiista ilaahu tan aniga adiga waay, waxaan rabaa waxaas inaan helaan dhaha. may waa kuu ballan qaadayaa in magacaaga aan sheegi doonin, laakiin waxaa qabanayso khayrka aan sheegi doono say dadka ugu faa'iidaystaan. marka ma ii sheegi kartaa waxa kaa maqan oo ilaahay weli uusan ku siinin? wuxuu dhahay waxaa iga maqan uu dhahay, ilaahan waxaan weydiistay, waxaan dhahay ilaahow dembi dhaaf aan ku weydiistaa, tiro ma tiriyo, intaasoo kun adiga dartaada ayaan waxaan rabaa ilaahay dartiisa awooddaada oo aada leedahay oo wax walba aad ku samayso ma safri karo,
laakiin sheekh aan jeclahay jiro imaam aimada ka mid ah oo kutubtiisana aan akhristo ilaahu indhahayga iigu qabooji inaan arko isagoo nool sheekhaas oo ah imaam axmed ibnu xambal markuu dhahay imaam axmed ibnu xambal wuu ku soo booday sheekii dhudhunkashuu bilaabay inuu dhudhunkado ninkii markaasaa wuu yaabay marka maxaa dhacay wuu dhunkanayaa marka wuxuu dhahay maxaa dhacay markaasaa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu igu soo leexiyey uu yidhi ducadaadii awoodeedii wuxuu igu soo leexiyey xaafadii ama magaaladii ilaahay subxana wataala wuxuu igu soo leexiyey masaajidka hortaada ku yaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu iga soo saaray masaajidkii oo hortiisii inaan seexdo waa layga soo deediyey masaajid hortiis in layga soo qaada gurigaaga foornadaada hortiisa laygu soo tuuray wuxuu yidhi waa awoodda ducadaada ilzam manaa wad daa'im ha kala joojin marka waxaan idin xusuusinaya aan kusoo gabagabeynaya nebiga wuxuu yidhi xadiis oo la yiraahdo waa daciif xadiiska laakiin macnaahu saxiix macnaha xadiiska waa saxiix man lazima alistikfaar qofkii joogtay istikfaarka jacala allahu lahu min kuli hamin faraja ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب xadiiskaas wuxuu leeyahay qofkii joogteeyo astaqfir ullah ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba oo kurba haysato ilahay uu ka qaadaa ciriiri kasta uu ku jiro ilaahay uu ka saaraa wuxuusan filaynin uu rabana ilaahay wuu siiyaa 3 darsi oo waaweyn istikfaarta akhri maalin kasto darsiga labaad boqolaal intaad gaarsiin kasta gaarsii hadalka bini aadamka aad ku celcelin lahayd iyo waxyaalaha kale aad dhihi lahayd booskiisa waxaad ku bedeshaa istikfaarta 3 adigoo waxaad rabto qorshaystay ilaahay inaad weydiisato ilaahay weydiiso waxay doonta ahaato waad heli